xaalka maanta aan ku sugannahay waa xaal u baahan in Puntland hore looga sii wado rubuc qarni baan joognaa maamulladii ugu horeeyay wali waxaynu ku jirnaa qaabkii lagu bilaabay wixii lagu bilaabay ku meel gaar buu ahaa laakiin wax in la dul joogo ay ahayd ma aysan ahayn 24 sano ka bacdi in la joogo wali golayaasha deegaanka inaan doorasho qof iyo cod aysan ku soo bixi karin madaxweynihii doorasho qof iyo cod uusan ku soo bixi karin arrinta runtii nuqsaan bay nugu tahay waxaana loo baahan yahay in laga gudbo waxa kale oo loo baahan yahay taariikhdii la soo maray in dib looga tusaale qaato oo waxa looga tusaale qaadanaya ay tahay markii ay tahay arrintu dawladnimo shaagu aad buu u gaabiyaa tusaale basiid haddaan u soo qaadanno isku daygii kan ku horeeyay oo doorasho deegaan la damco in la sameeyo 2013 buu dhacay isku daygii xigay 2022 buu dhacay macnaheedu waxa weeye 9 sano oo 10 sano gaadgaadaysa baa ka soo wareegtay in mar labaad muxaawalo la suubiyo maanta 3 degmo la sameeyay 42 degmo dhiman xilliga haray waa kooban yahay waxa laga rajo qabaa inay intaas wax ku qabsoomaan si meeshii aynu soo gaarnay looga sii ambaqaado waayo nolosha adduunkaaba waxa ay tahay laba mid inaad hore u socoto iyo inaad gadaal u noqoto waayo adduunyadu noloshu waa dalcad weeye dalcad dheer oo la fulayo weeye meel lagu nasiyo meel dhinaca la dhigay iyo meel la fariisatoona ma laha laba mid bay noqonaysaa inaad istiisho oo aad tallaabo u sii qaado iyo culayskaaga inuu dib ku rido ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay liman shaa minkum an yataqaddama aw yataakhir marka meel lagu naso la jooga male qodobka xiga xooga tanaaqudaha nagu jira annagu hadaynu nahay reer Puntland 24 sano ka bacdi haddaanan gola daagaan ku guulaysan karin in la dhiso inaan federaalka kula muranno federaal oo maxad federaalnimada u hirgelin weydeen hooyadiisnahay nalaga yeeli maayo limaada annagii baan sameyn weynay tii gacanteena ku jirtay maxaan kula xisaabtanaa qolada kale maxaan isu noqonaynaa dawlad dhexe oo kala la murmaysan noqonaynaa gardarayna ugu noqonaysaa taariikh baa ka dhacday wadankan 100 sano ka hor saldanooyin baa joogay ilbaxni baa joogtay xadaaraad baa joogay xadaaraadkaas joogay dadkii ka talinayay waxay ahaayeen dadkii ka soo jeeday goboladan rag waliba ku abtirsada dadkan ay waxa weey abtirsiyooda ahaayeen maxaa kamid ahaa boqor Cusmaan oo bari joogay waxa kamid ahaa inaan maxaan ku dhahay sheeg maartay Cali Shire oo joogay sanaad joogay Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan oo darwiish ah baa joogay ilaa iyo waxa weey sheeg Itoobiya gudaheeda u gaarsiisnaa awoodiisu Kennedy baa kamid ahaa tan iyo Hobyo joogay nimanka tolbay ahaayeen cilada qabsatay maxay ahayd wada shaqayn la'aan markii dambana maxaa dhacay 7 sano gudahood in looga takhaluso kulligood 1920 ilaa 1927 ma dhici kartaa marka xaaladdan ku noolahay markaan fiirino oo doorasho kasto imaanaysa inta la iskhilaafo dad shalay isku fiicna ay kala dhimanayaan oo isma ay islaynayaan oo dad xurmo isku laha la iswaayayo oo qabaa'il isu caroonayaan inay barrina gaarsiiso in maxaan ku dhahan la iswaayo oo wadankan sidii inta waa looga qaxay gaari waa uu noqday oo 70 sano ka bacdi iyadoo lagu qasban yahay lagu soo noqday ma dhici karta inay nagu dhacdo marka waxaan baahnaa taariikhda lafteeda 10 inaan ka barano guntiga gabagabadii waxa ay tahay shaqada noocaas oo reer Puntland oo dhan ay taraqub hayaan eegayaan ninka maanta ay dhabarka u saaran tahay waa ninka leeyahay Cabdi Faarax Juxa weey Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku guuleeyo annagana waxaan laga doonayaa inaan ku garabsiino hadii Allah idmo wixii la soo qabtay waa wadaleeynahay wax bay noogu fadhiyaan waa ilaashanaynaa inta dhimanna gacanna waa siinaynaa wixii ka dhinaadana waa ku xisaabtamaynaa